khiyaarta kusoo dhawaada morning vlog ama vlogga subxeed. saaka waa weekend, waa axad maalintii labaad. waxaan diyaarinayaa vloggii labaad waa uun magaalada dhexdeeda iyo maaragtay weekendiga meelaha aan ku qaadano waqtiga idinla wadaagi doonaa insha allah. hadda ayaan maaragtay baddi ka soo baxay. waxaan rajaynayaa inaan xoogaa yar jimicsi soo sameeyo kadibna aan magaalka kusoo laabto hadduu alla idmo. hadda ayaan ka soo baxay xaafaddii. waxaan ku sii socdaa meel la yidhaahdo JBS Center, meeshaasoo jimicsiga iyo jiimka iyo swimmingka iyo loo tago. subaxda hore meesha ayaan waqti kusoo qaadanaa, kadib ayaa magaalka meelaha kale la aadaya ayayna soo wadaagi doonaa hadduu alla idmo. sandhaydu waa iska magaalada iska cidla subaxii. meeshaan tenniska ayaa loogu talagalay. tenniska ayaa lagu ciyaaraa, waa iska playground. qayb kaloo basketna ugu taalla.
كان waa iskuulkii xaafadda mid ka mid ah iskuulaadka Holy Family la yiraahdaa waa primary and intermediate school. عندنا waa Brooks Court kamid ah magaalada Brooks halkan ay ku taalaa. marka magaalada saanay u qurux badan tahay oo wada doog winterkana meesha oo dhan wada cadaan ay noqonaysaa wada baraf fariisanaya. هذا حاولتي GPS center hareeraheeda. GPS centerkan waxa way meel gym leh, swimming pool leh, meel oo ciyaaraha soccerka iyo noocyaha kala duwan ciyaaraha lagu qabto leh, library ay leedahay. dadka markay soo galaan oo cusub yihiin waxaa loogu talagalay markii hore waxay ahaan jirtay dadka low income ka ama dadka newcomerska si free ayaa ID card loogu sameynayay for 1 year ilaa hal sano free ay ku haysanayeen. laakiin hadda waxbaa isbedelay. waxaa laga dhigay qofka markuu low income yahay ama uu hadda soo galo boqolkiiba 50 waa inuu iska bixiyaa ID-giisa membership saasay ku helayaa. library-giisa waa iska free.
halkaasna waxaa ka muuqda iskuulka la yidhaahdo Brooks Junior High School ayaa kasii muuqda. Brooks Junior High School aa la yidhaahdaa. halkan waa library-ga. buugta markaad soo akhrisato kadib meesha ku soo celinayso buug ritaanka waaye. halkan ku soo celinaysaa. halkan waa parking lot-kii meelaha la dhigta baabuurta shaqaalaha iyo dadkan oo jiimka imaanaya iyo meeshay parkingka baabuurka dhigtaan. halkan xarunta waxaa la yidhahdaa JBS Center Canada. Cityga ayaa maalgelisa GBS tan oo muxuu ahaa GBS Foodna way aydan contributionka qayb ay ku leedahay. parkingkii waa kuwan dadka handicapka loogu talagalay curyaamiinta meelaha buluuga oo arkaysaan. meelaha kalena waa dadka caadiga. halkan waxaa loogu talagalay baaskiilada lagu xirtaa dadka aan gaariga haysan ayaa baaskiilo ku xirtaan. baaskiilada halkan lagu xirtaa. halkan markii qorax jirto kale la iska fariistaa qoraxda lagu qaataa ama markay jiimku soo daalan dadka xilliga saamarka kale ayaa la iska fariistaa. albaabka horena waa kana JBS Center. hadda ayaan gelinaa oo wada socon doonaa insha Allah. halkan waa soo gelidii JBS. halkan ayaan ka soo galnay. qaybtan swimmingka loo aadaa. qaybtan sokorka la aadaa xagga ciyaaraha loo aadaa. qaybtan sarena waa jiimkii. jiimkaan hadda sii gelinaa. qaybta sare waa jiimka. qaybtaas xagga laga leexanayo waxaa weeye swimming poolkii. qaybta kale xagga midigta bidixdaana waxaa waaye meesha muxuu ahaa sokorka iyo ciyaaraha noocyada kala duwan. halkan waa qaybtii jiimka. jiimka halkaas beebkiisa halkan weeye kan exitka. marka ugu horeysana waa inaad halkan timaado. halkan waa meesha armaajooyinka dharka lagu bedesho. halkan waa kasii gelaysaa. halkan waa meesha dharka lagu bedesho dharka la dhiganayaa. gudahana aan sawir waa isku dayi doonaa haddii la hidmo laakiin anoo ilaalinaya privacyga dadka. okay jiimkiina waa kana qaybtaas bannaankana way jirtaa. waa qayb ka mid ah jiimka. okay qaybtan waa jiimka. haka okay hadda waan kasoo dhamaaday. marka waa qaybta dabaasha waa halkan weeye dabaasha. halkan waa library-ga. dhankan waxa waaye ciyaaraha kalaa loo aadaa. dhankana waa library-gii. sorry waa kana albaabkiisa library-ga.
sidii markii hore idiin sheegayay, halkan waa maxkamaddii, waa magaalada Brooks. halkan waa wadadan wadadii caadiga magaalada. waa wadadii downtownkii. halkaas idiin muuqata YMC aa la yidhaahdaa, idinka fogtahay cabaar. halkaas waa wadadii downtownka magaalada. bangiyada ku yaala ATBC, IB, muxuu ahaa RBC, bangiyada ku yaala. halkan waa Sign Life, waa insurance, waa insuransiga baabuurta, guryaha, wax walba. halkanna waa Cottonwood Court aa la dhahaa. dadka markay cusub yihiin ayaa muxuu ahaa ay rabaan inay luqadda bilaabaan, meesha assessmentiga loogu sameeyo waa imtixaanka looga qaado. Cottonwood Court aa la dhahaa, waa meeshaan luqadda. halkan waa wadadii caadiga tegaysay McDonald's-ka, magaalada kasii baxaysay ilaa dhamaadka magaalada. meeshaan waa shirkadihii baabuurta, GMC, Chevrolet ee baabuurta iibiya. halkan waa wadadii East Brooks sii aadaysay, oo muxuu ahaa kasii dhacaysay registrationka si u sii laabanaysay magaalada dhankeedaas aadaysay. halkan waa shirkadihii baabuurta, GMC, Ford, Chevrolet, meelaha baabuurta cusub lagu iibinayay iyo kuwa usidka ah. halkan waa KFC. halkaas idiin muuqatana waa Rogers, shirka kuwa qolada internetka iyo telefoonada iyo bixiyo waayo service-kooda, service providers.
meesha muuqata waxaa la yidhahdaa Avenue Living. Avenue Living waa shirkad guryaha kiraysa, guryo badan leh magaaladan ku leh, magaalooyin badan. Sorry, wadadan soo goynayay haddii xoogaa video muuqaalada ay xoogaa ruxmeen. Halkan waxaa la yidhaahdaa A&W, waa maqaayadaha kamid ah maqaayadooyinka ku yaala. Qaybtan waa drive through. Halkan waxaa la yidhahdaa Family Pizza. Pizzada lagu iibiyaa Family Pizza la dhahaa. Wadadanna waa wadadii aadaysay Tim Hortons, wadadii aadaysay weeye oo weekendiska oo kale loo sheeko doonto kafeega iyo hawada loo cabo, lagu soo cabo. Tim Hortons wadadii tegaysa waaye. Halkan waa Fast Gas, waa kaalin shidaalka laga qaato. Supermarketna way leedahay, Fast Gas aa la yidhaahdaa. Wadadan sii socotana waa wadada magaalada kasii baxayso ilaa McDonald's tagayso, kadibna highwayga sii aadaysa.
ugu dambeyn xaafadayda ayaan kusoo laabtay. muuqaalkiina halkaasaan kusoo dhammayn doonaa. inta muuqaal kale aan ku kulmi doono. nabaaday.